لله وإنا إليه راجعون الله نحريستو walaalkeena madaxweynaheena hore Ali Mahdi Maxamed ummadda Soomaaliyeed sabar iban Allah ka siiyo qaasatan caa'iladii iyo bahda hoose iyo caruurtiisana sabar iban Allah ka siiyo runtii lama sifay karo waa nin wadankan madaxweyne ka noqday waliba xil adag marka waxaan leenahay naxariistiisa Allah kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeed meel joogto waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay cafiyaan una duceeyaan bacdama uu noqday madaxweyne ummadda Soomaaliyeed marka intaasna waa ku baaqaynaa waana ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed joogtaba marka intaas kadib waxaan rabnaa duugta ama tacsida waxa hadda meesha yimiday waa beesha Murusade waxay ka tacsiinayaan guud ahaan tacsidaas iyo geeridaas tiiraanyada leh oo ku timiday madaxweynaheennii hore waxaan uga tacsiyahaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha oo maaragtay hadda ku abtirsado oo meesha fadhida oo mudulood ama abgaal marka waxaan leenahay walaalayaal runtii haddii lama qiimey karo walaag lama dhudhumiyo laakiin dhowrkaas 10kaas geel iyo 20kaas idaa ayay beeshu keentay tacsida in rabta inuu qayb gasho marka waxaan rabaa in naga gudoontaan ma dhihi karno waa mudan yihiin waana arrin ku haboon laakiin haddana intaasaan la soo talaabo qaadnay marka uun dhaqankaasaan rabnaa inaan booskii maaragtay aan buuxino marka ugaas iyo guddiga iyo imaamka iyo dhammaanba waxaan rabnaa arrintaas inaan naga gudoontiin sabri iyo baan Allah naga sii madaxweynihi inna walillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt walaalkeena Ali Mahdi saaxiibkay odagii Soomaaliyeed Allah naxariisto samar iyo iimaan Allah naga siiyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo jannatul firdaws Allah gelsho hadda taariikhdiisa iyo sheekadiisa kama hadli karna ilaahay waxaan uga baryaynaa jannada inuu geliyo adinkana waxaad in ka codsaa inaad cafi tiraahin oo u duceysiin ilaahay ha u naxariisto oday Soomaaliyeed oo ahay wax badanna soo sameeyay xilli aad u dhib badan runtii hadeerna sidoo kale uu shaqeynaayo uu odayeynayay ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta oo kale wuxuu u baahan yahay in loo duceeyay ilaahu adigu u dambi dhaaf ilaahu u dambi dhaaf ilaahu jannat firdaws geli ilaahu kitaabkiisa midigta ka sii ilaahu cafi adiga awoodda iska leh ilaahu cafi wajiyada quruxda badan ee qof laga soo tagay ku yimid maalka tirada badan geel weyn yahay maaragtay keenay idinkaan idin tacsiinayna si gaarna waxaan ugu tacsiinaynaa saaxiibada gaarka ah marxuumka maxamed faarax siyaad iyo ganacsada Mareenda yare aan si gaar ugu tacsiinay anaguna isugu tacsiinna soo dhawaada saakumullahu khayran waxaad keenteen maxaa la jiray uma baahna yani tacsiin uma baahno iga muuqda marka qorraxan taagana warka la badi maayo imaan u ducay qaraabada awlaadna bas waajin hudin wala ka saabe mashaayikh macallimiinta awlaadu hudin ka saabe waalidiintiin adoonul Allah ku dhowr haday dhintana sabab aakhir Allah ku dhow tinteero qoyran aleedisi idoo sharan aleedka xijaab cudurka jira dhamaan ummadda Allah ka dulqaado maskiinka maan ka tagna ducada u duceysan Allah waa aqbalo kitaabkiisa midig Allah ka siiyo qabrigiisa Allah waasiyo gadaashiisna Allah ummadda ma fidneeyo cudurka jirana shaqfal Allah ka tuuro Allah nusu ka yafiyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sidka fadhiga Smart waa fadhi raaxo dhameystiran fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto fadhiga Vienna nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta Astoria waxay la jaan qaadaysaa dooqa shakhsiga jiifka Ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyay alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta Simena waxay macno iyo muruud ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga Ansa Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon